وما كنت أقول هذه أدبان ودوهي وأنا السلام يا بعض الراديو القومية يقول أنا متصوماليات با قرال كان صور لغاية برتي إذا معني فيسبوك وسيدا أنا صور لغاية سيدا هذو أركتين بين أرنتاس وجلتا تاسانا مفافاهيي وسيدا ولا الله أنت الويديسي جواب جيدا طريق الرسيدة soo bandhigtay iyo xogta aad qortay isma waafaqayaan qaarkood way isdiidayaan taariikhda ku qoran rasiidada waa January 2016 iyo 1 Maarso 2020 adigana waxa sheegtay 9 iyo 10 bishan inay ku soo gaartay lacagta marka sidee isu waafajin lahayd 9 iyo 10 Maarso sanadkan ku jira taariikhda macni lacagta lagu qaatay taariikhdaas waa sharciyada weey kale dadkan kula soo xariiray ee aad leedahay madaxweynaha ku jira iyo taliyaha nabad sugidda qaranka qoraalkan iyo dokumentiga soo bandhigtay mooyee wax kale oo cadeyn ah oo aad hayso oo dadka Soomaaliyeed la wadaagi karto ma jirta إن شاء الله بيانو مرة وقتنا عندنا بيان دولمية وحي معنيه دعي يا وحي ليلي مادي يحيدني يلعبي لصدري يبرنامج دقائق وحربين انت بان قطعا عديي برنامج كنا سلعة عنو قريب وجرا حتى الله بعض عرضك وحيالها إن شاء الله وكيني كرا دولو إلى أنا أقول كرا سيدا أي حرير كذا كوهلا المدح ذقرنك dadku deegaanay ma kala aha waa la isu furan yahay xiriirkayga waxay ku heleen lambarada heleen way la soo xiriireen waa gart sidaa weey marka dad badan waxay aaminsan yihiin sheekada inay tahay wax oo propaganda ah ama aanan jirin oo la abaabulay cadeymaha soo bandhigtayna wax ku filan in lagu aamino xogtaad qortay maxaa kale oo nala wadaagi kartaa radio kulmiyahan cadeymaha soo bandhigay walaal waa la aamini karaa xawaaladii lacagta lagu soo diray baa jooga rasiidyadii iyo xawaaladii iyo wixii oo dhan cadeyntii oo dhan baa meesha ku qoran marka xogtan aan soo bandhigay ma aha wax macnaheedu la soo abaabulay sida hadalka u dhigayso waa xog sugan weeye waxaan jirina de wax igu xaqsanaya de ma garanayo walaal marka sidaa weeye afmadu waxay ka mid tahay magaalooyinka aan sida u weyneyn ama ganacsiga iyo horumarada waaweyn ka jirin dadku waxay aamin laayihiin in xawaalad ku taala afmadu laga helo lacag 80,000 ilaa 100,000 marka maxaa ku qancin lahayd afmadu walaal degmo weyn weeye waa magaalo weyn tuulo ma aha xawaalada caalami ah ku yaala 80,000 lacag ka badan baana lagu diraa ayna qaban karaan adiga laftaadu xogta dib baad u raadin kartaa ma afmadu tuulo ma aha degmo weeye xawaalada caalami ah way ku yaalaan lacagaha iyo kuwa ka badan way qaban karaan way bixin karaan cadeynteeda iyo macnaheedu rasiidkeeda ay ku qoran tahay meeshay ku qoran tahay waxa soo bandhigtay rasiidyo aad ku sheegtay in lacaga uga heshay Muqdisho ama ay dawladda Soomaaliya ku soo dirtay waxa kale warbixintaada ku jirta in lacagtii ku wareejisay wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland maxaadna u soo bandhigay rasiidyadii aad lacagta ugu wareejisay wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland walaal macnaheedu hadii loo baahdo lafteeda waa la soo bandhigi karaa وانا كوريتي وسيدا معني أنا شرحي وزارة المالية دي Jubbaland baan lacagta ku wareejiyay run way walaal maxaa laakiin rumayn karaya hadeeba ay dhacday inaad ku wareejisay Soomaaliya inaad karaya macni anaga kula hadlayna anaga hadalkan ku sheegayna rumayso dad farmaaka hortay ku rumeeyo macni iyo faad yaasiin ku rumeynaya aniga macni lacagta la isoo diray rasiidada soo bandhigay wasaaradda ku wareejiyay macni ku rumeynaya kula hadlaya marka iyada aaminaysa oo kale macni adiga waxay dadku aamini lahaayeen sida aad u soo bandhigtay rasiidada lacagta lagu soo diray inaad soo bandhigto midda aad adiguna ku wareejiso wasaaradda maaliyadda ugu shubtay hadii loo baarato lafteeda waa la soo bandhigi karaa waan ku hormariyay hadalka walaal waa maxay dhibaatada aad ka dhex aragtay inaad soo bandhigto sheekadan maadaama dawladdii ay kula soo xariirtay wada shaqayn iyo danihii qaranka ay kala hadashay dawladdu dee hadday si khaldan ku socoto dee lala shaqayn maayo muhiimna ma aha in la iga dalbado meeshii aan xoreeyay in cadawga ka ilaalinayay in difaaciyay intaasoo sano macnaheedu aan difaac ugu jiray inaan dib u burburiyo oo la dagaalamo oo shacabkaygii iyo deegaankaygii iyo dhul macnaheedu nabad ah oo system iyo nidaam uu ka jiro inaan qalalaasa geliyo oo la dagaalamo taade macnaheedu dawladda lagulama shaqaynayo waa barnaamij khaldan weeye waana barnaamijyada ay caadaystaan 24 saac ay ku jiraan macnaheedu inay systemyada maamul goboleedyada ay ku burburiyaan lacagihii qaranka macnaheedu dib u dhiskiisa loogu talagalay in la aruush iyo burburinta dadka deegaamada macnaheedu nabadda lagu burburiyo
ay ku waxaynayaan marka hadday dawladdu khaldan tahay oo ay dalbatay barnaamij khaldan in lagula shaqeeyo lagulama shaqaynayo waxaasna sax ma aha marka damiirku ima siinayo meeshaan macnihii 8 sano iyo ka hor iyo ilaa 9 sano aan difaacayay cadowga shabaab aan ka difaacayay inaan hadda dib u burburiyo oo shacabkayga qabsado oo magaaladii aan amnigeeda macnihii aan badbaadinayay inaan qalalaasa geliyo dib u afgembiyo damiir ma aha Soomaalina ma sax ma aha marka qorshahaas iyagu wateen qorshahaana qorshe lagula shaqayn karo ma aha iyaga waa qorshe qaldan weeye cid kastoo macnihii ummadda Soomaaliyeedna waa aragtaa qorshahaas inuu qaldan yahay dawladdu dagaalka ma ay dalban laakiin Soomaaliya waxay ka dalbatay inaad dalkii halka laga maamulo ee Muqdisho iyo madaxtooyadii qaranka aska warqabtaan ciidan dawladeed oo halka la geeyo kuwaaga xoojiya macnihii waa dagaal macnihii way tahay macnihii systemka macnihii meeshan system baa ka jira maamul baa ka jira dawlad baa ka jirta maamul goboleed baa ka jira Jubbaland baa macnihii degan oo gacanta ku haysa inaan macnihii aan Jubbalandtii aan ka amar qaadanayn systemkeeda ka midka ahaa ciidankeeda ahaa inaan ka hor nimaado oo khilaafo waa dagaal waa qayb dagaal ka mid ah waa Jubbaland dagaal la gal weeye marka way caddahay inuu dagaal dhici lahaa marka taana wax la qaadan kara ma aha walaal taas iyada anigu Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland aniga walaala ma nihin laba nin oo Soomaaliyeed baan wada nahay inuu madaxweynaha Jubbaland yahay anigu madaxweynaha yahay dadka Soomaaliyeeduna magacyada way wada wadaagaan malaha inaan walaalanahay waxa ka raacaysaa baan u maleynayaa isaga magaciisa iyo aniga magacayga isaguna waa Axmed Maxamed Islaan ana Mahad Maxamed Islaan baan ahay laakiin walaala ma nihin magacana waa la wadaagaa dadka qoraya ka war inaan walaala tihiin maya artaas jirto warkaas macnihii dadku way yaqaanaan anigana waa la garanayaa Axmed Madoobena waa la garanayaa marka laba nin oo Soomaaliyeed baan marka adiga ila hadlayo macnihii waxa laga yaabaa suurtagal inaan kala xigin Axmed Madoobe waya marka talada ugu weyn ee ku siiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe markii aad la wadaagtay sheekadan ama dhacdadan maxay ahayd ma inaad sidaan u soo bandhigtid ba mise in la qariyo wixii idin dhaxmar adiga iyo madaxda dawladda hadayba run yihiin inaan soo bandhigo walaal go'aankeeda anaa soo bandhigay marka hadiiba aad qarin kari weyday wax idin dhaxmar adiga iyo madaxweynahaadii qaranka maxaa weeye waxa kale ay dadka ka filan karayaan madaxweynaha qaranku walaal waa shakhsi waana khaldami karaa hadduu si khaldan oo macnihii aan nidaam ahayn oo wax u wado la qarin maayo waa la sheegi runtaa la sheegi runta ruuxii sheega macnihii dhib ma aha macnihii sidan ma aha qarannimo ma aha si macnihii system oo nidaamana ma aha in macnihii dhibaato la abuuro oo deegaamo nabada dhibaato laga abuuro oo anoo sargaal oo ciidan haysta macnihii shacabkaygii la ii adeegsado waxa madaxweynaha lagama aqbalo waa waxaas wax la aqbali kara ma aha waa maxasi weeye waxaas waxyaalaha gafkaana lama qaato walaal wax cod ah ama fariin qoraaleed ah oo kale ma jirta oo aad la wadaagi karto dadka Soomaaliyeed oo ku saabsan qoraalka aan soo bandhigtay iyo handadaada lagu jeediyay haddii loo baahdo waan soo bandhigaynaa codadka laftooda haddii loo baahdo codadka laftooda soo bandhigaynaa waan haynaa codadka waan soo bandhigaynaa insha Allah si guud maxaa iga sheegi kartaa xaaladda gobolka hadda Jubbaland degmooyin kala jira oo Jubbaland gacanta ku hayso laga yaabo in dawladdu doonayso ma jirtaa qof sidaadoo kale ah xiriir la sameeyay reer Jubbaland way isku duuban yihiin waanan u soo jeednaa dhagarta la abaabulay iyo waxyaalahaas waan ka digtoonahay guud ahaan waan uga digayaa bulshada macnihii reer Jubbaland shacab iyo ciidanba inaysan ku kadsoomin waxyaalaha noocaas ah ee dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ay ka shaqaynayso ilaa waan uga digayaa reer Jubbaland marka hawlahaas waan u soo jeednaa waana ka digtoonahay mana aha fal suurtagalaya ma aha kama suurtagalaya halkan arrintaas qof kale ma jirtaa oo sidaadoo kale la soo xiriiray malaha waxaa fiicnaan lahayd arrinta Fahad Yaasiin inaad weydiiso su'aashaas Fahad wax inta dhaafsiisan oo isdhaafsateen ma jirtaa qoraalkaaga aan ku jirin walaal Fahad Yaasiin waxyaalaha aan isniri iyo madaxdan wada xiriirayna waxaan isniri oo dhan waxaan ku cadeeyay qoraaladayda iyo waraysyadayda muuqaalka aan bixiyay yaan ku cadeeyay marka halkaas aad ka daalacaan kartaa wixii kale u sibaato in madaxweynaha kula hadlay iyo in Fahad kula hadlay iyo in qof kale kula hadlay sidee ku ogaatay taliye maadaama aynan aqoon raggan telefoonna hore aanan uga hayn muuqaalna aynan ku wada hadleen dadku way shaqaana walaal macnaheedu
waan garanayaa aqoon baan u leeyahay macnaheedu markuu indhaha ka xidhan baan ahay macnaheedu farmaajona waan aqaanaa faajiyasiina waan aqaanaa kumay soo hor istaageen Soomaan ama muuqaal kale ama ayna hadlin waxa ku wada hadasheen telefoon lambaradii la igala soo xiriiray iyo ciday yihiin iyo wixii oo dhan cadayntii ka taasan kusoo qoray walaal lambarra fiigo macnaheedu koobi oo la iska soo beenay butay maaha kulli nabad suudi macnaheedu xafiiska madaxweynaha ka wada shaqeeyaan waa sidaa way walaal